Bismillah, Assalaamu calaykum. Maalin wanaagsan, habeen wanaagsan hadba kaa idin tahay. Barnaamijkeena EFC qaybtiisii labaad ayaan mar kale isku soo noqonay. Insha Allah qaybtan labaad waxaan diiradda ku saari doonaa lambarka labaad oo kaarka hadalka. Qaybtii koowaadna waxaan kusoo sameynay basicska ilaa iyo kaarka hadalka. Laakiin marka hore ujeedadeen ma aha barnaamijka waa just cilmiga ku dugan oo aan kulan galeynayna anaga. Sida caadin way ka dhacdaa dunida waxyaabo real life waa la kulan galaya oo meel walba waxaa ku arki kartaa Facebook clone, Instagram clone, Twitter clone, waxyaabahaas email client. waa sida camal ay anaga barnaamijka ulama jeednaa cilmi baan ku dabaqaynaa inta aan ku guda jirno. Hadduu eebbe karaal noqdo waxaan adeegsan doonaa kaliya if ls switch iyo waxyaabahaas waad ku samayn kartaa haddii aad rabtid. Sidoo kale waa lagu samayn karaa laakiin anaga if ls ayaan dooranay oo taas ayaan ku samayn doonaa hadduu eebbe karaal noqdo. Qaybtii koowaad waxaan ku soo aragnay itus haraaga oo qaybta labaadna waxaan ku eegi doonaa hadduu eebbe karaal noqdo kaarka hadalka inta aan ka gaarno oo lambar 2 isaga wuu dheeryahay ilaa dhowr qodob ayuu ka kooban yahay. waana kana notepad kan yar aan soo diyaarsanay ayaa naga saacidi doona intaan barnaamij ku guda jirno. Lambarka labaadna wuxuu ka kooban yahay kaarka hadalka 5 qodob oo sida inuu qof kaar ku shubto asaga inuu qof kale ugu shubo maafa packageska ama internet inuu ku shubto ama inuu qof kale internet ugu shubo oo MMT ah. 5taas qodob ayuu ka kooban yahay. Muuqaalka wuu dheeraa doonaa laakiin inta aan ka gaarsan karno 2 ama 3 waan isku dayi doonaa hadduu eebbe karaal noqdo. laakiin marka hore waxaan halkan ku soo qabsanay 2 variable oo number oo qofka lambarkiisa iyo money oo lacagta la gelinayo. labadaas variable ayaan soo qabsanay. lambarka labaad si aan ugu guda galno ft kor inaan ka baxnaa kadibna ls halkaas aan ka furnaa. ls kalima waa if ls option haddii qofka option labaad uu doorto ayadana maxaa dhacaya halahaas inoo soo koobiyey qaybtii hore. waxaa naga tirtaa haraaga iyo waxaas uma baahniin hadda meel ibra ayaan ka rabnaa. sidoo kale haraana ka tir meesha. ayadana noo wada koobiyey markaan ilaan way badan yihiin waa 9 qodob. laakiin dadka badanaa waxaa cilad ka qabsataa square bracketskan haddii aad isticmaalaysid VS Code barnaamijkaas saacada ayaa jira. insha Allah barnaamijkan ka samayn doonaa. laakiin haddii editor kale aad isticmaalaysid kala braceska meelaha ay ka furmayaan iyo meelaha ay ka xirmayaan dadka inta badan wareer ayay ku keenaan oo la isku qasaa. haddii kuwan ay ka wareeraanna programka dhan ayaa isku qasmi doona. laakiin si aad u fahantid waxyaabahan waa level intaan had waa hal level sax. passwordka waa qalad inta laga dhahaa ilaa iyo 9kaas qodob waa 1 level. lambarku kaligiis waa hal level laakiin waxaa la level ah sidoo kale 9ka qodob ee isaga la mid ah. intaas waa hal level oo sub level u ah barnaamijka markuu biin qofku u saxan yahay. marka 9kii level ayaan diyaarinaynaa waan iska boobsinaynaa. marka mid u dambeysa oo 10aad ah waa ls kaliya. qofkan waxaa la dhihi doonaa fadlan lambar sax ah dooro. haddii lambar 9 wax ka weyn uu doorto yacni 10 11 wax saas uu doorto ama ka sii weyn waxaan ka lambaradan iska boobsi marka 9 ilaa iyo 2. lambaradii waan soo dhamaystirnay 9kii qodob iyo midka ugu dambeeya 10aad oo ah lambar sax ah dooro qofka la dhihi doono. lambarka labaad ayaan taageedkan ahaa isaga ayaan gudaha u sii gelaynaa. waxaase naga tiri waa kaarka hadalka kor ku qoran marka qofka uu soo galo. sidoo kalena halkaasi hadalka aydan dhamaystir. lambarkan waa sana ilaa 5 qodob ayuu ka kooban yahay saa hore u soo sheegnay. marka waa soo dhamaystirnaa oo isku soo laabanaynaa. waa soo dhamaystirnay 5tii qodob oo waa kaas MMT ugu dambeeyay korna kaarka hadalka ku qorneed. 5tan qodob asana qofku waa inuu kala doortaa sax oo optional siiya. qofka haddii uu hal doortay
waa shaqo gooni ah. Haddii laba uu doorto 3 4 ayadana waa sidii hore camal oo mid walba body gooni ayaa loo furi doonaa. Structure-kaas yar noo soo koobiyey halkaas noo dhig alignment-gana mar kale koobiyeyso, laakiin marka hore waxaas iska tiri empty ka dhig. Okay, alignment mar walba iska fiiri. Intaas wada koobiyey laakiin waa 5 qodob sax iyo midka ugu dambeeya oo ah lambar sax dooro. Marka 6 jeer ayaan paste gareynaynaa ayadana sidoo kale. alignment-gaas mar walba muhiim inaad iska fiirisaa. midka ugu dambeeya oo 6aad ah waa fadlan door lambar sax ah haddii qofka lambar 5 wax ka weyn uu doorto. lambarada sidoo kale marka waa boobsiinaynaa iska sixinaa ayagana. Okay, waa soo saxnay ayagana waa kuwaas ilaa 5tii lambar. waa intaan waa hal level sax ayagana oo sub level u ah lambarka labaad. lambarka labaad markaa fiirin koowaad qofku waxaa la dhihi doonaa markuu koowaad uu doorto inuu telefoon soo geliyo ee lacagta geliya laga dalba doonaa. kadibna ma hubtaa la dhihi doonaa haa iyo maya ah. halkaas marka fadlan lacagta soo geli, lacagta gelini meesha ka tirtiri. kadibna systemka u diyaar. haddana ma hubtaa dhaa su'aal weydi lacagtii la soo geliyey. kadibna haa iyo maya ayuu haysta oo haa iyo maya inuu kala doorto waay qofka. haddii maya uu doorto qofka waxaa la dhihi doonaa mahadsanid. haddii lambar 2 wax ka weyn uu doortana fadlan lambar sax dooro. laakiin haddii lambar 1 uu doorto maxaa dhacaya? marka hore waxaa laga jaagelaynaa balance-ga. kadibna waxaas ayaa loo daawaci doonaa haddii balance-giis uu saxan yahay. haddii kalena haraaga kuguma filna. waa simple. Okay, aydan ka jaagareyma qofka haraaga ka jaagarey marka hore. haddii haraaga uu ka weyn yahay ama la eg yahay money qofka uu soo geliyey, yacni lacagta uu soo geliyey. haddii kale ayadana waa shaqo kale. Okay, qofka haddii haraagiis uu limit yahay ama uu ka weyn yahay lacagtii uu soo geliyey, waxaa la dhihi doonaa haraaga cusub si loo helo. haraagii hore waxaa laga jari doonaa money uu soo geliyey. haddii qofka markaan haraagiis uu limit yahay ama uu ka weyn yahay, qoraalkaas ayaa loo daawaci doonaa. waxaad ugu shubtay lacagtii laga soo akhrinayo. kadibna haraagiis cusubna waxaa laga soo akhri doonaa haraaga hadda la sameeyey variable-ka. haddii kalena waa simple oo haraagada kuguma filna haddii condition-kaasi uu sax noqon waayo. aan tijaabina marka oo maxaa qaldan bishaas iska tir dheeri ah. intan lambar 3 banaanka geeni gudaha keen. Okay, marka raangaray marka binki geli oo lambarka labaad ka rabnaa ku shuba airtime ka rabnaa. kadibna lacag fara badan iska geli oo been ah. Okay, waa kaas haraagada kuguma filna ilaa 210 ayuu ahaa haraagan sax. marka raangaray. Okay, binki geli lambarka labaad. kadibna $10 geli tusaale camal haade. waa kaas EFC waxaad ugu shubtay $10. kadibna 200 haraaga oo 10 laga jaray. haraagan ku hore wuxuu ahaa 210 sax. 10 laga jaray si haraag cusub loo helo. lambarka koowaad intaas ayuu ahaa. waxaan u gelaynaa marka lambarka labaad. lambar 2giisa usii gelaynaa oo ah ku shuba airtime. waxaan haddii aad ku wareereysa braceskan hal kale aydan waa jirtaa oo waxaan sameyn karnaa comment inaan ku calaamadeysan oo tusaale camal meeshaasi waxaan dhahaynaa wuxuu qofku soo galay optionka labaad. kadibna koowaad ayuu kasii galay inuu koobiyey. tan kale halkaasi optionka labaad ayuu labaad kasii galay. kadibna waxaan dhahaynaa labaad ayuu saddexaad kasii galay. halkaasna waa 2 afar kasii galay. halkaasna iyo midka u dambeeya oo ah optionka labaad ayuu kan shanaad kasii doortay.
waxaas waad ku calaamadaysan kartaa haddii aad ku wareeraysid. Okay, halkaas ninkan markaan lambarka labaad oo ugu shubaya time qofka waxaa dhihi doonaa mobilka soo geli, kadibna lacagta soo geli, kadibna ma hubtaa dhihi doonaa su'aal ayaa la weydiin doonaa haa iyo maya ayuuna kala dooranaya. Okay, let's do it. soo sameynay marka waan soo buubsinay waxaa la dhihi doonaa qofka fadlan geli mobilka qofka oo aad ugu shubeysid, kadibna marka uu geliyo meesha ka clean garay systemkan u diyaari, kadibna lacagta soo geli dheh sidoo kale ka clean garay oo systemka u diyaari, kadibna ma hubtaa ayaa la dhihi doonaa lacagtii qofka uu soo geliyay loo soo akhrinaa inaad ugu shubtid lambarkii uu soo geliyay, labadaas baa la soo akhrinaa haa iyo maya ayuuna kala dooranaa. sax haa iyo maya ayadana waa in la kala doortaa qofkii aan ka jeeganayna waxa uu doortay. ayadana waa symbol, waa sidii hore oo kuwii hore unbay la mid tahay aan soo marnay, waan buubsinaynaa marka. Okay, qofka haddii maya uu doorto waa mahadsanid, haddii labadooda wax ka weyn uu doortana waa fadlan lambar sax dooro sax. laakiin haddii kow uu doorto waa sidii oo kale ayadana balansiga laga jeegaraynaa, kadibna qoraalkaas ayaa loo daawacaa haddii uu saxmo balansigiisa oo iyo haraaga cusub. haddii uu balansigiisa conditionka uu fuli waayana waa kuguma filna. Okay, let's do it ayadana. Okay, waan soo buubsinay qofka haraagiisa laga jeegaraynaa haddii uu ka weyn yahay ama la eg yahay manigii uu soo geliyey, haraagiisa cusub soo loo hela kii hore manigiisa ka jira, kadibna waxaad u daawacdaa waxaad dollar sign, kadibna manigii uu qofka soo geliyey ugu shubtay telephone lambarkii uu soo geliyey, haraaga cusubna waa haraagii hadda oo ah haraagii hore oo laga jaray manigii uu soo geliyey. haddii conditionka uu fuli waayana haraagada kuguma filna, aan tijaabin ayadana. binka geli, kadibna lambar 2, kadibna lambar 2 mobilka geli, lambar random iska gelinayna waxaan hadda verification kuma xirna, waa shuruud kuma xirna. kadibna lacagta geli $10 iska gelinayna, kadibna haa dheh. Okay, waa kaas ayadana waxaad ugu shubtay laakiin meeshaas AVC ka tagin structure dhimale, lambarkii iyo lacagtii waa la soo akhrinaa iyo haraagii cusub oo $10 laga jaray ah. qaybtii labaad ayadana intaas ayaan kusoo koobaynaa hadduu eebbe karaale noqdo. waxaan qaybtii labada qodob ee inoo hartay saddexda qodob inoo hartay insha Allah ayadana qaybta saddexaad ayaan ku dhamaystiri doonaa hadduu eebbe karaale noqdo. taxanahan wuu inoo sii socon doonaa oo part 3 iyo qaybo kaloo fara badan baa imaan doonaan ilaa iyo intaan ka samayn doono. marka ilaa iyo mar kale aan isku soo noqon doono. wassalaamu calaykum.